بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ومحمد حسين عدو. إن شاء الله وحان ربا موغال كيغان إنان كديتو عرقتكو آدن شخصياتك أما مسؤولين معناها ما أنتو أتاقن مسؤولية ودن كوكس الرئيسة مدحوين النمدا أي ربان إني شعب كان صوماليات وخبتان runtii waxaan rabaa aragtidaydan shakhsiyadeed inaan maaragtay dhowr qodob uga hadlo insha Allah mid waxay noqon doontaa xusuusin mid waxay noqon doontaa talo midna waxay noqon doontaa duca insha Allah aan ku bilaabo ducada Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa shakhsiyaadkan maaragtay oo mas'uuliyadda wadanka ugu sareystay doontay madaxweynenimo in Ilaahay ka dhigo dad ay albaabadooda u furan yihiin dadka wanaagsan aan xumaanta ka shaqaynaynin dad ay u furan yihiin qulubtooda iyo dhagahooda talooyinka wanaagsan ayagana wax taray ummadana wax taray sababta aan ducadaasi muhiim u tahay waxay tahay maadaama aad doonateen mas'uuliyadaasna runtii waxaad ku gudan kartaan oo kaliya idinkoo hela dad wanaagsan iyo tala wanaagsan markaad heshaan ayaad runtii mas'uuliyadaas gudan kartaan dadkaas wanaagsan oo maaragtay oo garabkiina taagan iyo talooyinkaas wanaagsan labadana waxay anfacayaan dadkaas aad mas'uulka ka noqon doontaan mararka qaarkood markaan fiiriyo siyaasadda Soomaaliya ka jirto waxaan soo xasuustaa yaraantaydii aan iska kaftame waxaa jiri jiray filimka lama geli jirin lacagna iskaga ma khasaarin jirin hadduusan lahayn feerar badan ku jira iyo dagaal badan ku jira lama gali jirin oo wax la isweydiin jiray war filimkan dagaal badan ma leeyahay feerar badan ma ku jiraan taasna waxay ka wada sidnaa caruurta iyo dadkii waaweynaa oo filmaanta xiiseyn jiray dabcan anigu hadda cidna sheegi maayo cidna waxba ku dhaleecayn maayo laakiin waxaan ilaahay ka rajaynayaa in badankiina aad siyaasadda aad u galin maaragtay dagaalkaas iyo qalalahaas aad u galin runtii aad u gasheen ummadan dagaalka iyo maaragtay iyo ka soo daashay ummadan kala argoosiga ka soo daashay oo dagaalkiina waxba lagu faa'iiday waaye argoosashadiina ninba maalin markuu cudad helo oo qofka kale ka argoostana maaragtay waxba lagu faa'iiday waayo in aad halkaas inaad raadiseen ayaan jeclahay inaad maaragtay mas'uuliyaddan u doonateen run ahaantii waxaan rabaa walaalayaal dacadaas markaan ka baxo inaan idin soo xusuusiyo sideedaba mas'uuliyadda aad doonateen waa mas'uuliyad dowladeed waana midda ugu sarreysa runtii waxay leedahay faa'iidooyin badan ayay leedahay waxay faa'iido ku leedahay sideeda waxaa jiri jirtay ummadda Soomaaliyeed intaysan ay dowladda helin wax la dhigi ma jirin wax la yiraahdo midnimo Soomaaliyeed intaysan dowladda helin aysan madaxweyne helin ma jirin wax la yiraahdo wadan Soomaaliyeed ayadana ma aysan jirin maadaama dowladnimada iyo xilka madaxweynenimada ay yihiin astaan u taagan midnimo ummad Soomaaliyeed isla markaana u taagan wadan oo macnaha dhulkiisu midaysan yahay oo macnaha aan la kala lahayn ay Soomaali ay meeshu rabo safar ka galaya asagoo ka heli kara fursad meel walba oo Soomaali ah asagoo nabadgelyo ka heli kara meel walba oo Soomaali ah marka mas'uuliyadda aad doonateen waa idin xusuusinaya waa mid keenta ummad wax la yiraahdo ama shacab Soomaaliyeed oo midnimo leh waa tan keenta wadan la yiraahdo wadan Soomaaliyeed haddaba marka waxaa nasiib darro ah runtii aad looga xumaado ah maadaama mas'uuliyad noocaas ah aad doonateen oo ay shaqadeedii tahay ummadan kala tagtay si aad u abuurtaan ummad Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed iyo wadan Soomaaliyeed aad u doonateen mas'uuliyaddan shalayna aan haysanay markaan dowladda qaadanay oo lagu helay midnimo iyo ummad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed lagu helay laguna helay wadan Soomaaliyeed maanta
muddo 30 sano midnimadii Soomaaliyadana way maqan tahay wadankii Soomaaliyana wuu maqan yahay sababaha lagu kala tagayna aysan Soomaali maanta loo dhihi karin wadan Soomaali loo dhihi karin hal shacabna ay tahay ay sabab u tahay dawladdaas iyo tartanka ama shakhsiyaad ha u galaan ama gurubaha u galaan arrinta dawladda si mar labaad loo helo shacab Soomaaliyeed iyo ummad Soomaaliyeed iyo wadan Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay in la helo dawladdaasna waxa loo baahan yahay dawladdaasi waxa ka dhigay soo celin kara labada shay aan sheegay shacab Soomaaliyeed iyo wadan Soomaaliyeedba qofka hoggaanka ayaa soo celin kara haddaba waxa nasiib darro ah marka runtii shakhsiyaadkiina maaragtay maanta u taagan xilkaasi culayska aad u badan leh shaqada aadka u badan leh khatarta aadka u badan leh dulqaadka dulqaad badan u baahan in aad maaragtay shacabkii aad la wadaagi weydaan sababta aad iskugu soo taagteen xilkan maxay tahay dhibaatada aad rabtaan inaad xalisaan see baad u xalinaysaan sidee baad u xaqiijinaysaan intaasoo dhan lama wadaagin waxa kaliya ee maanta muuqda waxay tahay rajooyinka shakhsi ahaan aad ka qabtaan oo shakhsi ahaaneed inaad wadankaasi talada u qabataan umaada sheegin shacabka Soomaaliyeed rajada ay ka yeelan karaan ama uga dhex muuqan karto adiga marka sharaxaadda aad ku soo sharaxday rajo umaada muujin oo weligood ugumaada hadlin dhibaatooyinkan jiro idinkoo badankiina dadka hadda xukunka u taagan iyo kuwa haysta iyo kuwa badan oo mas'uuliyad ka soo qabtay yaqaana sababaha dhibaatadan keenay iyo oo aad uga dhawaateen iyo caqabadaha diidan in la helo ummad Soomaaliyeed oo wada jirta in la helo dhul Soomaaliyeed oo wadan Soomaaliyeed og ayaad haddana waxa aan la wadaagin rajadiina kaliya ayaad waxaad u muujiseen xildhibaanada aad codka ka rabtaan shacabka aad rabtaan barita inaad xukuntaan rajada oo adiga barita markaad madaxweyne noqotid rajada uu ka qabi karo wadanka oo kugu taageeri karo ama kugu diidi karo weligin umaada muujin oo waxa kaliya rajadiina aad idinka kaliya ayaad isku sheegay waxaana la wadaagteen xildhibaanada aad rabtaan codka aad ka rabtaan waxa nasiib xumo ah iyadoo aad taasi aad gabteen hawshiina ay ahayd in aad shacabka la wadaagteen laba arrin kale oo kale oo runtii aan u ahayn daawo mas'uuliyaddaas aad doonateen waxaad la wadaagteen numberka koowaad waxaad la wadaagteen eedayn wax la yiraahdo oo aad ku eedeynaysaan ama mas'uuliyiintii hore ee xilka u soo qabtay ha ahaadaan ama kuwa hadda jooga ha ahaadaan waad eedeysaan waxaad isku eedeysaan sida aad sharciyada ugu tumateen waxaad isku eedeysaan sida aad shacabka ugu xadgudbaysaan sida aad ugu cadaalad falayni sida aad macnaha hantida wadanka aad u lusantaan sida tagrafalka shakhsiyadeed iyo gurubaysiga ayaad macnaha ummadda u sheegtaan maalinna mid idin ka mid ah ama kuwa maanta xukunka haysto ama kuwa doonayo ama horaha u soo qabtaan oo talada wadanka ugu sareysa ama mas'uuliyad ha ka soo qabtaan marnaba lama aadan wadaagin war dhibaatooyinkaas sidee baad ku xalinaysaa waxaan eedayn ka ahayn xalka weligood iyo allahooda oo rajo maada gelinin oo aad leedahay dhibaatooyinka sidaasaan ku xalinaa eedayn aad eedeynaysaan shalay qofkii mas'uulka ahaa eedayn la eedeynaya maanta ninka ka mas'uulka ah waxaan idin sheegayaa eedeymahaas aad isku eedeynaysaan markaad mas'uuliyadiina kuwii hore haye iyo kuwa hadda hayo waxa idinkaga xogagaalsan oo dhabta u og oo ay u taabatay
oo ay dareemayo shalayna dareemaya maantana dareemaya waa shacabka marka uma baahno inaad macnaha dambiyada aad kala ay galayaan in aad shalay haddaad madax ahayd iyo hadda kan madaxda ay galayaan in aad u sheegtaan uma baahno sababta ayaga ayaa idinkaga xogaarsan shacabku waxay u baahan yihiin in loo sheego war waxaani adaad doonta mas-uuliyadda seebaad ku xalinaysaa shacabka taas ayay u baahan yihiin shacabka waxay kale u baahan yihiin in aad tusaale u noqotaan waxaan ognahay dadkiina maanta mas-uuliyadda haya iyo kuwa shalay haya iyo kuwa maanta doonanayo mas-uuliyaddaasi aad haysaan iyo saameyntaas aad ku leedihiin mas-uuliyadda ayaad iskaga aargoosataan ma isweydiiseen war aargoosiga aad mas-uuliyaddan iyo awooddan aad iskaga argoosanaysaan ma waxay ku ekaanaysaa argoosigan dhibaatada ka timaado shakhsiyaadkiina oo mas-uuliyadda haya mise waxay noqon doontaa mid usoo tallaabda shacabka waxay ahayd maantan waxaa nasiib xumo ah waxaan nahay ummad 30 sano argoosi iyo maaragtay qof walba awood maalintuu helo kala argoosanaya ayaa waxaan maanta ummad midaysan iyo waddan midaysan aanu haysan waxay ahayd maanta dadkiina mas-uuliyiinta ah in aad tusaale u noqotaan shacabka shalay kala argoostay maanta diyaarku waa inay kala argoostaan inaad tustaan argoosiga dadnimadeenna iyo wada noolaashadeenna iyo waddankeenna kuma jirtay inaad tusaale fiican u noqotaan aad tustaan inaad iscafisaan oo aad tusaale fiican u noqotaan laakiin argoosigiina wuxuu dadka sii tusay in runtii ay ku sii dhiiradaan ay tahay wax fiican ilan madaxda tusaale ayay noqdaan waxa kaloo nasiib xumo ah aamusnaantan aad ka aamusan tihiin oo aad rajooyinka idinka shakhsi ahaan iyo guulaha aad rabtaan inaad gaartaan idinka keliya og iyo xildhibaanada xilka aad ka doonanaysaan waxay ummadda u keentay dhibaato ayay u keentay maadaama mowqifkiina uusan caddayn maadaama mowqifkiina aad shacabka ka qabtaan aysan caddayn maadaama mowqifkiina waddanka aad ka qabtaan aad u caddaynin ummadda waxa ay keentay in dad taageero idii ah oo raba inaad wax noqotaan haddaad raalli ka tihiin iyo haddaadan raalli ka ahaynba in ay runtii ay sii kala geeyaan ummadda ayagoo kugu taageeraya qabiil ayagoo kugu taageeraya nacayb ayagoo kugu taageeraya inaad qofka ay u arkaan cadow iyo argoosasho ay kugu taageeraya dadkaasi ayaad macnaha fursad siiseen fursaddaasina intaadan mas-uulka noqonin waxay ummadda u sii keentay inay sii kala qaybismaan waxay ahayd waajibaadkaaga marka hore waxay ahayd in aad mowqifka aad ummadda maadaama aad mas-uuliyad ummadda dhan aad u doonanayso maadaama aad macnaha aad u kala cadaalad falayso maadaama aad mas-uul ka noqonayso ummadda Soomaaliyeed waxay ahayd inaad mowqifkaaga marka hore u caddaado oo aad u sheegtay ayay ahayd taasi waxay dadku ku abuuri lahayd rajo taasi waxay ka celin lahayd shakhsiyaadka aadka u xun oo raba in ummadda maanta adigu magacaaga ay adeegsanayo ku taageerayo inay ummadda sii kala qaybiyaan runtii waajibaadkii ay idinku lahaayeen dadka aad ku tusi lahayn rajada waddankan ay ka quusteen nabadgelyadooda ay ka quusteen rajooyinka ay nolosha lahaayeen ka quusteen waxay ahayd eedeemo keliya nin shalay madax soo noqday kan maanta inay is eedeysan keliya ummaddan uma baahna ummaddan way idinkaga xoogagaalsan tahay dhibaatooyinka ay mas-uuliyiinta geysteen cadaalad darrada ay faleen ku tagrifalka ay subiyeen mas-uuliyaddaas kusan way idinkaga xoogagaalsan tahay ayaga shalay ku dhacday ayaga maanta ku dhacaysa waxaad way idinkaga xoogagaalsan yihiin marka waxay ahayd war inaad u sheegtaan sida looga bixi karo aad la timaadaan ajendo aad la timaadaan wax dadka rajo geliya
runtii taasi maysan dhicin haddii ay shalay idin gafteen waxaan idinkula talinayaa runtii labadan arrin oon soo sheegay midna ay tahay maaragtay in aad macnaha runtii aad dadka rajo u abuurtaan tan labaadna ay tahay inaad mowqifkiina dhabta aad ummadda u caddaysaan iyo waxaa u taagan tihiin maadaama mas-uuliyadda ugu sarreysa waddanka ay maaragtay aad doonateen ummadda dhan aad u wada dhexaysaan isla markaana maaragtay dadka kala qaybinaya oo sheeganaya oo magaciina maaragtay sheeganaya inay ku taageersan yihiinna aad u sheegtaa runta oo aad tiraahda anigu waxaan ahay nin mas-uuliyad ummadda Soomaaliyeed u doontay ummaddaydu waa isku mid ayagaan xalka u raadinaya maaragtay waxyaabaha aad wadin raalli kama ihi haddaad i taageersan tahayna noocaasi maaragtay raalli kama noqonaya igu taageersan tahay anigu wanaagaas igu taageer xumaan ha igu taageeri ugu dambeyn iyo gabagabo runtii qofka bini aadanka oo mas-uuliyadda doonto mas-uuliyadda sideedaba waxaad mas-uul ka tahay ummaddaas waxaad mas-uul uga tahay inaad ayagana kala badbaadiso inaad macnaha aad noloshooda ka warqabto inaad u kala cadaalad fasho inaad midayso in cadowga waddanka uu leeyahayna waddamada shisheeyana aad ka ilaaliso runtii mas-uuliyaddaasi adigoo niyad fiican si kastoo aad u niyad fiican tahay si kastoo aad u wanaagsan tahay si kastoo fikrad iyo wax wanaagsan aad u qabto runtii intaasiba ma aha mid aad runtii mas-uuliyadda aad ku gudan karto ma aha mid aad ku cadaalad fali karto maadaama waxaad tahay qof insaan ah oo shaqsi ah oo maaragtay shaydaan ku xiriiro qaladaad ayaa kaa dhici kara hami baa ku geli karo sadbuursi ayaa ku geli karo dad u eexasho ayaa ku geli karo argoosasho ayaa ku geli karto intaasi oo dhan markaad mas-uul tahay waxa kaliya kaa badbaadinaya adiga wanaagaaga kaliya kaama badbaadinaya waxa kaliya kaa badbaadinaya waxay tahay waa in aad ogolaataan maadaama baarlamaanku uu noqon doono baarlamaankii oo ay shaqadiisi tahay idinka in idin xisaabiyaan in aad u ogolaataan ayagana ay yihiin awoodda kaliya idin xisaabinaya in aad u ogolaataan in ay idin xisaabiyaan oo ay idin qabtaan oo qaladkiina idin sheegaan haddaad gaabisaanna idin sheegaan fadlan ha suubinina oo dadka bini aadanka waxbay ka bartaan intii baarlamaanna soo maray 10kii baarlamaan naga soo maray ilaa carta ilaa ay kan hadda maanta maaragtay ugu dambeeyay kan waxay suubiyeen baarlamaankii 10aad madaxda dadka madaxweynayaasha noqonaya baarlamaanka halaalushina baarlamaanka ha ku laalushina jagooyin baarlamaanka ha ku laalushina laaluush lacageed ha ku laalushina si aysan idin xisaabin aad ummadda u qayantaan baarlamaankaasi xor ka dhiga baarlamaankaas ha idin xisaabiyaan war ummadda marka idinka arkaan baarlamaanku idin xisaabinaya qaladkiina idinku xisaabinaya haddaad qalad gashaan idin qabanayo haddaad shaqada ka gaabisaan idin qabanayo sharciga aad baarlamaankaas u hogaansanataan oo aad corrupted ka dhigan baarlamaankaas shacabkana waxa waaye tusaale ayaad u noqonaysaan oo macnaha sharciga iyo amaawiirta ayay u hogaansanaanayaan askariga kaa hooseeya wuu u hogaansanaanaya mas-uulka kaa hooseeya wuu u hogaansanaanaya tusaalaha ugu fiican aad qaban kartaan waa taas fadlan taas suubiya taasna waa iga talo insha allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa maaragtay aragtidaasi shakhsi ahaan keligay ma qabo ummad badan ayaa qabta aan soo gudbiyey in aad kuwii qaata allah idinka dhigo runtii dad badan oo maaragtay daawan doona waxay dhihi doonaan waxaad sheegaysa cid dhegaysanaysa ma jirto aniga laakiin waxaan idiin sheegayaa qaacida waxaan qabaa aniga ka maxamed xuseen caddow ahaan qaacidadaydu waxay tahay runta inaanan xan ka dhigin runta inaan xaq ka dhigin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu